salaan kadib waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa maamulaha dugsiga oo joogay muddo kooban oo aan filayo inaanay gaarin 2 bilood kaasoo dhaqdhaqaaqii horeeyay ama furkii horeeyay ama codsigii horeeyayba gaarsiiyay ururka bile iyaguna ay ka soo jawaabeen ururka bile aad iyo aad buu ugu mahadsan yahay maadaama uu horeeyo cidii ugu horeysay uu yahay talaabo horumarka inay ka qaadeen iskuulka oo ay keeneen maanta 30 milo sibira aad iyo aad buu ugu mahadsan yahay waana urur had iyo jeer ka shaqeeya samafalka arrimaha bulshada aad iyo aad baa ururka bile ugu mahadsantiin arinta ay furteen ee iskuulka boqolkiiba boqol baan ku mahadnaqaya mahadnaq kadib waxaan soo jeedinayaa maamulada iga dambeeya ee la gobol iyo degmaba inay iyaguna ka ballan qaadaan wixii iskuulkan ay ka qabanayaan waayo iskuulkan waxa ka muuqda dayac badan oo aad u badan waana meesha boodhankaynoo ah haddaynu nahay gobolka Hawd inuu ahaado muraayadii ama bilicdii iskuulaadka gobolka ayaa muhiim ah laakiin inuu dayaca tirka noocan iyo dayaciin foolxumada noocan ay ka muuqato inaga ceeb inagu tahay anigoo ah xildhibaan haddana waxaan ka qayb gelayaa xagga arrimaha bulshada waxaan horta anigu bixinayaa $100 waxaan leeyahay maamulka degmadu ee ay joogaan xoogayihii iyo maayirkii iyaguna madasha ka ballan qaadaan wixii iyagu dawlad ahaana ee ay bixinayaan iyagu shakhsiyaad kama rabno laakiin waa maamulkii degmada ee fulinta haaye aan howla u yigmanay wax leeyahay ballan qaado idinkuna maayir iyo xogaye wixii ay iskuulkan kaga qayb qaadan lahaydeen waxaan soo jeedinayaa kale oo baaq dheer u diraya wasaaradda waxbarashada inay iskuulkan ka soo qayb qaadato dayactirkiisa assalaamu calaykum waraxmatullaahi